runta ha ogolaanina in la idinka dhaadhacsiiyo. fadeexadii ugu weynayd ayaa waxa ay ka dhacday dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota. hooyo Soomaaliyeed oo 52 sano jir ah sidoo kalena ku guuleysatay darajooyin iyo abaalmarino waaweyn ayaa waxa ay cadeysay in ay dhacday lacag loogu talagalay dadka masaakiinta ah 6 goobood oo ganacsi ay si gaar ah ay u lahayd sidoo kalena ay ku jiraan goobo ilkaha lagu hagaajiyo ayaa khiratay lacag waaweyn in ay cuntay. Ilhaan Cumar ayaa xal waxa ay ku dhex barooratay Soomaalida dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota waxa ay ka hadashay arrimo aad iyo aad muhiim ugu ah dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool dalka Mareykanka. wixii aan idinkaga digayay muddo bila ka hor iyo waliba waxyaabihii aan idin sheegayay xalay waxa afkeeda ka cadeysay Ilhaan Cumar. haddaba qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan inta uu socdo barnaamijkeena dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay caalamka iyo waliba dalkeena Soomaaliya. muuqaalka like saar lana wadaag saaxiibadaada. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan. halkan aan naga daawanaysaan waa baraha Facebooka iyo YouTube-ka aan ku leenahay ee Burhan Channel. janaalkeenan markasta waxaad kala socon doontaa wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka oo idil insha Allah. barnaamijyadeena halkan ka baxana waxaan ku soo dari doonaa wararka arrimaha dibadda adduunka hadda waxa uu u diyaar garoobayaa qarkana loo saaran yahay in dagaalkii saddexaad ee adduunka uu qarxo. gantaaladii waaweynaa ee kuwa dadka lagu gumaado ah ayaa la isku adeegsan rabaa oo hadda qolo kasta ama wadan kastaba waxa uu kala soo baxay gododkii ay ugu dugnaayeen. haddaba daawada insha Allah barnaamijkaas waxaan ku soo kordhin doonaa isla barnaamijkeenan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca caalamka iyo Soomaaliya. anigu waa Burhan Cali, halkan waa Burhan Channel. sida aad la wada socotaanba xeer ilaaliyaha maxkamadda dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota ninka lagu magacaabo Andrew Loger ayaa soo bandhigay sawiro iyo waliba cadeymo waaweyn oo muujinayay in ay Soomaali badan ay dhaceen lacagtii loogu talagalay dadka masaakiinta ah. lacagtaas qiimaheedu waxa uu ku sheegay xog ayahan 250 milyan oo dollarka Mareykanka. September 20keedii ayaa dawladda Mareykanka gaar ahaan waaxda dabagalka gobolka Minnesota cadeysay in lacagahaasi loogu talagalay dadka masaakiinta ah ee aan awoodin in ay xilligii marxaladii adduunka xumaa ee 2 sano ka hor ku soo korortay in dadka lagu quudiyo. caruurta iyo dadka waaweyn ayaa u ahaa mudnaanta koowaad. dawladda Mareykankana waxa ay dadkeeda ugu talagashay qof kasta oo baahan in gurigiisa wax lagu siiyo. lacagtaas 250 milyan ee dollarka Mareykanka haddii aad iga aaminaysaan si sax ah markii loo qaybiyay boqolkiiba 2% lama bixin ama waxaan ka wadaa halkii milyanba waxa laga dhiibay lacag aan dhamayn 500 oo dollarka Mareykanka. waxyaabaha ay aad iyo aad ka ola yaabtay dawladda Mareykanka waxa kamid ah qof aan shaqayn tusaale gurigana iska jooga lacagtana guryaha ay degan yihiinna ay ka bixiso dawladdu in la arkay isaga oo guri 700 oo kun oo dollarka Mareykanka iibsanaya. sidoo kale waxyaabaha aad iyo aadka ilaa iyo hadda adduunka oo dhan uu la yaabay waxa kamid ahaa tusaale adiga wiilka aad dhashay oo kale ama gabadhaada oo dugsi sare iska dhigata ayaa akoonkeeda waxa ku soo dhacaysay lacag gaaraysa ilaa 2 milyan oo dollar. adduunku waxa noocan oo kale ah markuu arko waa uu iska ashahaataa oo sidoo kalena dadka qaar ee lacagaha dhaca sidaan oo maamulaan fanaaniin wariyaal iyo waliba dad culimo ah oo iskugu jira culimo iyo caamo ayaa loo haystaa in ay dhaceen 250 milyan oo dollarka Mareykanka.
sida aan horeyba idinkugu soo sheegay kiiskan waxaa hadda maxkamaddu ay dacwad ku soo ogtay ilaa 52 qof oo u badan Soomaali. tusaale dhowr qof oo Oromo ah markii laga bixiyo inta kale waxa ay ahaayeen Soomaali, maadaama gobolka loogu talagalay lacagahaas in lagu bixiyo uu ahaa gobolka Minnesota, kaasi oo ay Soomaaliduna ay tahay percentage-ka ugu badan ee dadka ku nool gobolkaas. Culimadii masaajidyada, imaamka iyo waliba mu'adinada ka ahaa ayaa loo haystaa in ay dhaceen lacago. sidoo kale gobol ka tirsan dalka Mareykanka oo la yiraahdo Ohio waxa ay dawladda Mareykanka 2 isbuuc ka hor soo bandhigtay wadaad isaguna markii hore inkiray laakiin gadaal dambe ka qirtay in uu lacaga charity ah ama lacaga loogu talagalay dadka masaakiinta ah uu dhunsaday, guryo iyo baabuurna uu kala baxay. sidoo kale wadaadkaas waxa uu ahaa YouTuber sideena oo kale uga qaraabta social media. waxaaba taas kaaga sii daranba waxa uu sii qariyay in YouTube ay lacag ka soo gasho dawladda Mareykankana aysan ogeyn ninkan halka ay lacagaha ka soo gasho, laakiin baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ninkan ama wadaadka ay soo galeysay lacag bilaa canshuur ah oo ka imaanaysay Google Pacific America. tusaale bishii $5,000 ugu yaraan ayaa u soo dhici jirtay wadaadkan, dawladuna ma aysan ka warqabin wax canshuurna lagama qaadi karin. haddaba ogow wadaadkaas ma ahan in mid anigu aan iska samaysanayo sida hortiina idinkaga muuqata waa qoraalkii ama goobtii uu ku cadeeyay in lacaga been abuura oo dhunsaday dad uusan waxba ugu qaban, sidoo kalena uusan ku samaynin wax mutadawac ah ama uu dad siiyay. haddaba bil ka hor waxaan idiin soo sheegay in culimo iyo caamaba ay ku wada jiraan dadka lacagaha dhacay. aan u soo laabanno gobolka Minnesota waxaa jira shakhsi lagu magacaabo Jamaal oo sidoo kale isaguna ah gadoomiye xaafadeed naagtiisa oo Oromo ah iyo asagaba loo haysto in ay dhaceen lacag $2 milyan. haddaba waxaa kaloo ku jira YouTuber isagana lagu magacaabo ama wariye lagu magacaabo Deeq Darajo 22 cisho ka hor isaga oo ka duuli rabay garoon ku yaalay gobolka Chicago ayaa dawladda Mareykanka oo ka warqabtay dhaqdhaqaaqiisa ay qabatay 2 maalin oo uu xirnaa. waxaa lagu soo daayay damiin iyo in ninkan uu soo wadanka ka bixi karin. Deeq Darajo isagana waxaa loo haystaa lacag gaaraysa ilaa $1 milyan. Soomaali kaloo waxaa jirtay isku dayday in ay baxsadaan, iyaguna sidaas oo kale loo soo qabqabtay. haweeneydii ugu horeysay kadib markii ay dawladda Mareykanka ku dhawaaqday in lacaga la dhunsaday oo Oromo ahayd ayaa ayadana waxaa laga qabtay garoon ku yaala Minnesota. haweeneydaas Oromada iyadoo hadda waxa ay ku jirtaa xabsi maadaama ay isku dayday in ay dalka iskaga cararto. Soomaalida ku nool dalka Mareykanka badankood barnaamijkan lugta ayuu la geli doonaa, xitaa waxaa laga cabsi qabaa in dad fanaaniin ah iyo waliba dad siyaasadda dalka Mareykanka darajooyin ka haya in cadeymo iyagana la soo hordhigo. maxaa yeelay ilaa iyo hadda 6 qof ayaa qiratay, qof ka midna uu ahaa qof dumara oo aan rabo in ayada kaligeed bal hadda aan idin sharaxo. haweeneydan lagu magacaabo Canab Cartan Cawad waxa ay ka mid tahay 50 qof oo lagu eedeeyay in ay dhaceen lacagihii quudinta caruurta. sida aan idin sheegaba magaceeda waa Canab Cartan, sidoo kalena waxa ay ku jirtaa dadka loo haysto in $250 milyan in ay dhaceen. Canab Cartan haddii shakhsi ahaan aan idin sharaxo waa qof dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota aad iyo aad looga yaqaano. waxa ay dhowr jeer bilad sharafeed iyo shahaadooyinba ka qaadatay dawladda Mareykanka iyadoo loo siinayay in ay tahay gabar aad iyo aad ama haweeney aad iyo aad ugu dadaasha dadka masaakiinta ah xaqoodana u soo dhicisa. sidoo kale waxa ay kaalin muhiim leh ka soo gashay 20 gabdhood ee qaaradda Afrika lagu jecel yahay. hay-adda qaxootiga adduunka qaramada midoobay gaar ahaan UNICEF ayaa waxa ay la shaqeynaysay dhowr sano.
haweenaydan Canab lagu magacaabo waxa ay gacanta ku haysatay ilaa 11 goobood oo ganacsi kuwaasi oo iskugu jiray maqaaxiyo dukaamo iyo waliba meelo ay iyo waliba dandiiste ilkaha lagu farsameeyo jimcihii ayay ahayd markii Cawad oo 52 sano jir ah ay qiratay in ay gashay dambiyada dhammaan lagu soo oogay oo waxa ay qiratay in aysan wax lacaga aysan dhiibin sidoo kalena ay ku maqan yihiin ilaa 13 milyan oo dollarka Mareykanka haweenaydan markii lagu daro ilaa iyo hadda waxa qirtay dambigan in ay galeen 6 qofood hal nin oo Oromo markii laga reebo inta kale waxa ay ahaayeen Soomaali iskugu jiray rag iyo dumar qof kasta oo barnaamijkan lagu soo eedeeyay marka hore ee barnaamijkan saxaafadda ay sii deyso waxa ay dadka ku dhihi jireen annaga wax dambi ah kuma jirno waxna maana dhunsan qisadii ugu yaabka badneed waxa ay dhacday khamiistii hadda la soo dhaafay khamiistii ka horeysay oo 2 wiil oo saaxiibo ah kuwaasi oo isla soo ceeshay muddo aad iyo aad u fara badan sidoo kalena safaro ku tagi jiray qaaradda Yurub iyo waliba Afrika in lagu eedeeyay inay dhaceen lacaga aad u fara badan labadooda markii koowaad maxkamadda waa ay ka diideen in ay wax cuneen laakiin labadooda mid ka mid ah ayaa markii dambe xoogaa in uu shakiyay oo is yiri waa lagu cafinayaa ayuu wax walba waxa dusha uu ka saaray ninkii kale uu saaxiibka la ahaa hadda haddii aad $2 ba cuntay xitaa maxkamadda markii lagu horkeeno oo aad dhahdid waxba ma cunin waxa ku xigta isbuuca ku soo xigaba in aad dhahdid waa laqay waxbaana cunay haddaba Canab Cartan Cawad haddii lagu helo dacwadan ah in ay dhunsatay lacagtan dhowrka milyan oo dollar ee Mareykanka ah in ilaa ugu yaraan 5 sano oo xariga ay noqonayso sidoo kalena dhammaan hantida baabuurta iyo guryaha ay gadatayba dawladda Mareykanka ay la noqon doonto qof walba oo maalin xitaa iPhone 14 ka gatay lacagtaas dadka masaakiinta ah iyo carruurta lagu quudin jiray markii cadeen lagu helo markaas ayaa ugu dambaysa oo dawladda in ay ka ceshato ay dib u xaraashi doontaa si ay lacagihii uga maqnaa uga hesho haddaba daawadayaal ugu dambayntiina Ilhaan Cumar oo aad si fiican u wada taqaanaan ayaa waxa ay ka hadashay qodobo xasaasi ah oo intiisa badan ba aniguba horay aan idinkugu soo sheegay Ilhaan Cumar iyadu ma ahan congresswoman laakiin waa state representative dadku intiisa badan waxa ay u haysteen in ay tahay congress laakiin congresska gobolka Minnesota xildhibaanka ku matalaya waxa lagu magacaabaa Keith Ellison waana African American oo Islaam ah haddaba doorashadii oo soo dhow Ilhaan Cumar oo campaign wada ayaa sidoo kale waxa ay aad ugu dooday in dadka Soomaaliyeed aysan fahansaneen waxa socda Ilhaan Cumar waxa kale oo ay sheegtay in ninkan lagu magacaabo Keith Ellison uu yahay qof Islaam ah Afrikaana Soomaalidana fahmi doona xoogaa buuq maalmahan ka jiray gobolka Minnesota iyo waliba doorashadii hore waxa jirtay in qabiil ahaan la isku ficilay Soomaalida dalkaas Mareykanka degta waxyaabaha ilaa iyo hadda dalkeena burburiyay ayaa ah qabiilkaas haddana waxa uu marayaa dalka Mareykanka in qof Islaam ah oo waliba kugu dhiig Afrikaana aad uga codaysid habar kale oo gaal ah diintaada iyo waliba dhaqankaagana ka soo horjeeda laakiin sababta ayaa ah Keith Ellison uu yahay qofka ugu mudnaanta badan in mar kale loo doorto Congress-ka dalka Mareykanka una ku matalo Islaamka iyo waliba Soomaalida degan gobolka Minnesota Ilhaan Cumar hadaladeedii oo aad iyo aad u qiiro badnaa ayaa ilaa iyo hadda waxa uu hadalhayn ka dhaliyay baraha bulshada dad badan oo Ilhaan dhaliilsan way jiraan dad badan oo iyada siyaasadeeda ama qaabkii rababa ay ku taageeraan qabiil iyo inay dana gaaraba ku haystaan ayaguna waa jiraan adiga haddana daawanaya maxay kula tahay sidoo kalena ha hilmaamin inaad muuqaalka like saarto maxaa yeelay adigana waxba kaama dhimayso oo intaan haddaad na soo dhageysatay waxa ay laagtaadu muhiim u tahay inaad na dhiirigeliso horena aan u sii dhaqaaqno mar koowaad mar labaad mar saddexaad ayaan ka codsanayaa fadlan inaad muuqaalka like saarto anigu waa Burhaan Cali halkaana waa Burhaan Janaal
mahadsanidin.